Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee uga difaaci kartaa WhatsApp-kaaga in laga jabsado. Waxaad muuqaalkan ku arki doontaa sida aad ku adkay lahayd tiirarka WhatsApp-kaaga. Daawasho wacan. Si aan isaga ilaaliyo in laga jabsado WhatsApp-kayga, waxaan sameynayaa qodobo dhowr ah. Marka koowaad, waxaan soo furanayaa WhatsApp-kayga. WhatsApp-ka markaan sidaan usoo furto, waxaan ka dooranayaa saddexdaas tig ee halkaas ku taalo. Kadib waxaan kasii dooranayaa setting-ka. Markii aan doorto, waxaan sii dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay account. Kusii dhufanaya two step verification. Markii aan ku dhufto, waxaan leeyahay enable. Kadib halkaas ayaad gelinaysaa 6 lambar ee password ku ah si aan lagaaga jabsan WhatsApp-kaaga. Haddana waa ku celinaysaa confirm your pin. Pinkaaga waa ku celinaysaa 6 lambar oo adiga ku qaas ah. Waan cidna ka ogeyn meeshan waxaa lagu leeyahay geli email-kaaga. Haddii aadan doonin inaad email geliso, waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay Skype si aad uga gudubto aadan u gelin wax email ah. Okay ayaa sii leedahay. Kadib si aad hawshaada qabata u dhamaystirto, dhaan ayaa leedahay. dhaan markii aad tiraahdo optionadan inaad passwordka iska off garayso, waa inaad passwordka iska bedesho, kanna waa inaad ku xirto email address si aad u sii adkayso WhatsApp-kaaga. Hadda WhatsApp-kaaga waxaa kugu xiran 6 pin. Lagamana yaabo in laga jabsado. Even haddii uu qof ku dayo inuu jabsado WhatsApp-kaaga, ma awoodi doono inuu jabsado. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Haddii aad ku cusub tahay channel-ka, fadlan subscribe saar. Gambalaalkana furo si aad ula socoto wax waliba aan soo dhigno. Mahadsanid.